siyaasaddeena arrimaha dibadda waxaan ku dhisnay wax wada qabsi is ixtiraam dalalka caalamka ah iyo ilaalinta sharafka iyo madax bannaanida dalkeena marnaba maynan aqbalin in arrimaheena gudaha uu shisheeye soo fargeliyo annagoo ka dhowrsanay tallaabo kasta oo hoos u dhigi karta ama u dhigaysa qabka iyo qaranimada Soomaaliyeed marnaba maynan aqbalin in duruufaha nagu xeeran awgood nalooga faa'iideysto oo la isku dayo in go'aamadeenna gacanteena lagala baxo siyaasadda gobonimada ah ee arrimaha dibadda ee aan qaadanay waxay horseeday in markii labaad Soomaaliya loo doorto 4 sano gudaheeda xubinimada golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay waxaa sidoo kale madaxweyne ku xigeen aanu ka noqonay golaha loo dhan yahay ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa annaga oo haatan u sharaxan xubinimada golaha amniga ee midowga Afrika oo ay doorashadiisu dhacayso dhawaan sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya waxay u diyaar garowday musharaxnimadeeda ka mid noqoshada dalalka aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee loo yaqaan Security Council-ka oo ay noogu dambeysay muddo 50 sano ka hor